أنا أحتاج بس إنه يساعدوني بالمريضة ويساعدوني بس يعني إنه يساعدوني الناس. hooyadan Suuriyaanka ah waxay wadataa gabar naafa ah 4 jir ilaa iyo hadda oo ay dhowr iyo 10 jir 12 jir 13 jir tahay ay ka xanuunsan tahay way iska dawarsataa waxay tiri halkan qof ii joogto ma lahan qaraabi ehel midna ma haysto sidaa daraaddeed muddo ay raadinaysa sidii la sheegay markii walaal Suuriyaan oo hore u caawinay oo Syria tagay uu xaaladeena uga warbixiyay. هي بنتي مريضة والله وبحاجة إلى يعني علاج بنتي، وأنا ما في معين حدا إلي غير الله. أنا أطلع يعني في الشمس وأطلع عشان بس أجيب حق العلاج تبعه. أنا ما بدي بس يعني إنه يساعدوني فيها حق العلاج تبعه. وأنا سيدرا محمد بالزن. maanta ayaynu kulannay waxayna nooga warbixinaysaa xaaladdeeda laakiin waxaan siin doonaa lacag aysan filanayn oo kadis ah. الله يبارك فيك يا أخي، الله يجبر بخاطرك يا رب، الله ييسر أمورك، الله هيك يبعث لك أولادين الحلال يا رب يحنوا عليكم يا أخي. الله يبارك فيك يا أخي، الله يجبر بخاطرك، يعني أنا أجيت بس الليلة بس عشان أصور، أنا مش متوقع أشوف عبد العزيز، الله يبارك فيك يا أخي، الله يجبر بخاطرك مثل ما جبر بخاطرنا يا رب. إن شاء الله. الله ييسر أمورك يا أخي. $100 ayaan siiyey laakiin kuma filnaanayso $100 oo sida aad aragtaan saan ay ugu farxday laakiin waxaan ka codsanayaa inaad caawisaan oo wixii loogu talagalay iyo wixii kale oo lacaga hawada u marsiisaan 6104810809 سيدرا محمد بالزن. أنا أحتاج بس إنه يساعدوني بالمريضة ويساعدوني بس يعني إنه يساعدوني الناس، يعني أنا ما في معين حدا إلي غير الله، ما في معين. أنا جيت أنا يعني في الطيارة أجينا في هذا الحي. واحد يعني قال لي إنه في عبد العزيز وهو شاف على الفيسبوك. lambarkan ayada ayaa iskale magaca gabadheeda ayaa ku qoran oo dhameystiran isaga ayaa lacag loogu soo diri karaa isaga ayaa laga soo wici karaa isaga ayaa laga xiriiri karaa inta badan dadka Soomaalida ah waxay jecel yihiin dadka inay caawiyaan laakiin Syriyaanka halkan ku sugan qaarkood ayaynu caawinaynaa gaar ahaan kuwa dhibaatada saxda ay haysto sida hooyadan oo kale waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodka barnaamijka ducada qalbiga.